waxaynu ku dhex jirnaa bishii ramadaan weliba qaybtii dambe. ilaahay waxaynu ka baraynaa inuu inoo gebagabeeyo nabad iyo naxariisna inoogu soo dhammaystiro. tobanka dambe way ka sii duwan yihiin 20kii hore. caaisha waxay leedahay radia allahu canha, allaha ka raali noqdo, xaaskii nabiga qiimaha badnayd. waa xadiidka saxiixa suu cadaynayo, marka bisha ramadaan 10ka dambe ay yimaadaan dhaqankii nebiga ayay inoo soo gudbinaysa. axya leyla wa ayqada ahlah wa shadda almi'zar calaa macna alxadiid. wuxuu nebigu samayn jiray habeenkuu noolayn jiray. cibaadadu waa nolol, waktigana way noolaysaa, dalkana way noolaysaa, qofkana way noolaysaa. ehelkiisana wuu toosin jiray, waa ubadkii iyo oryihii, si ay ugala qayb qaataan khayrka. ilaan khayrka keliga lalama aamuso, laakiin waa loola gurmadaa dadka, ila waa dawadii. markaa ehelkuna si ay ugala qayb qaataan, ilaa in masaajidka la ictikaafo la degay dumarku kala qayb qaadan jireen nabiga sala allahu calayhi wasalam. waa inqad ahla washadda almi'zar, guntigana waa adkaysan jiray. laba macnuu ka turjumayaa bay culimmadu yidhaahdeenoo, ama xaasaska iyo mucaamaladoodu yarayn jiray, iska dayn jiray, ama waa inagan idhaa guntigu dhisha iskaga dhiga bay idhaha soomaalidu, gunti giijis, guntigu adkaystay, cibaadadu u ladiidanayaa. waktigaa iyada ah waa waktiga uu malagu la subcin jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam qur-aanka. waxa uu badin jiray markaa nebigu qiyaamuleylka, salaada ayuu tukanayaa, aada u dheeraynayaa. waxaa la baadi doonayaa habeen aada u qaalaya oo 10ka dambe ku jira, weliba tirada isdhiman ayay u badayin axaadiidu. waa habeenka loo yaqaano leylat lqadri, ee ay ka waramayso suurad qur-aanka kariimka ka midoo la ydhaha suurat lqadr. habeenkaasoo sifooyin badan leh baa tooshka lagu ifinaya, si loo soo qabto, dabxidh loogu sameeyo, dhannaba aanu kaaga dhaafin. habeenkaa ma aha habeen lacag iyo shaah yar iyo adduunyo yar la raadinaya. waxaa la raadinaya wax weyn. waxaad raadinaysaa cimrigaagu inuu hore u kaco 80 sannadood. qof soo cibaadaysanayoo kale inaad sidiisa noqoto. waa hal qarni in ku dhow ayaa cimrigaagu hore u boodaya, oo aad ka dhigantay qof cibaado u taagnaayoo kale. leylat lqadri khayru min 1000 shahr. 1000 bilood bay ka khayr badantahay baa weliba laguuli, oo iyadu aanay ku jirin. marka habeenkaa qofku wuxuu ku heli karaa, ku waafaqi karaa. dee nabigaa inoo tilmaamo, waxau ihi man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. habeenkaa qaama, qofka cibaado isu taaga, isagoo ilaahay ajri ka doonaya, isagoo rumaysan wuxuu ilaahay u ballan qaadoon ilaahay ka shakisanayn, dembigii horaa loo dhaafaa, darajadaasuu gaadhaya. waxaa habeenkaa la odhanayana, dee ficilkii wuu inoo sheegay nebiguyo, waa in cibaado loo taagnaado, qur-aankii la akhriyo, salaatuleylkii la badiyo intuu qof kari karayo. waxaa lagu dhawaaqayaana waa adducaa, ducadaynu badinaynaa. nin dhug darani marunbuu la helaabaa layi. haddaad dhug darantood laakiin ku celceliso waad la heli uun. caaisha khayr allahaas iyo waxaaskii nabiga ee caqliga badnayd, ee cilmiga badnayd, ayaa su-aashan wakiilo nooga noqoto nabiga inoo weydiisay. markaasaa waxay tidhi habeenkaa leylatulqadriga haddaan ogaada maxaan idhaahdaa? nebigu wuxuuhi waxaad tidhaahdaa allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani. ilaahay adigu cafiskaaguu badan, cafiskana waad jeceshay, ilaahw iska kay cafi. marka ducadaasna waynu ku celcelinaynaa, ducadoo dhanna waynu badinaynaa. marka waxaynu isku daraynaa ficilkaa wanaagsan aynu u taagnaano cibaadaha, iyo ictikaafkii, iyo hadduu ilaahay u sahlo qofku awood u leeyahay cumradii, iyo ducadii aynu badino, dikrigii oon kala joogsi lahayn. qofka ilaahay uu waxsiiyeyna shaqada wuu iska soo yaraynaya. had iyo jeer waxyaabaha kaa caawin kara salaatuleylka waxaa ka mid a inaad maalintii yaro seexato, inaad culayska shaqe ee maalintiina iska yarayso, inaad macsiyada iyo dembiga iska dayso. waxyaabaha cibaadada kugu dhiirigelinaya, kuu sahlaya wey habeenkii, kuuna macaanaynaya. marka waxaynu leenahay, iskuna waaninaynaa, ma garanayno gooraynu adduunyada ka safrayno. waktigeenu gooruu kusoo gebagaboobi war kama hayno. waa safar kadisa, waa laguu sheegay. waa laga yaabaa inaan rabadaantan waxbaba kaaga dambayn. aynu sahay qaadano, sida nebi maxamed ba u ahaa sala allahu calayhi wasalam, inagoo kaga dayanayna. sidaasuu cibaadaysanayo, cagihiisaa barari jiray, iyadoo dembigii hore iyo kii dambeba ilaahay uu ka dhaafay.
nolol bay u tahay ruuxdeenna iyo jidhkeenna labadaba. allah inagu anfaco. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.